sheekada maanta aan soo qaadanayno waxa ay qusaysaa wiil yar waxa uu 7 jir ahaa sanadka 2011 muuqaalkan ama documentary-gan xilligaasi ayaa la sameeyay laakiin hadda dhow ayaa la soo daayay internetka gaar ahaan YouTube kala soo galshay sheekadaas ahaan annaga hadda waxaan ka soo qaadaynaa wax fiction ah sida film oo kale markaasi loo sameeyay ama la isugu aadiyay sababtoo aan ognahay marka qaar waxaan filmaanta ku daawanaa waxaan ognahay inaysan adduun ka dhaceenin oo maaragtay si la isugu aadiyo la sameeyay marka sheekadan taas ayaan ka soo qaadaynaa sababta aan saas u leeyahay kulay waan idin sheegi doonaa ama waan u imaan doonaaba soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أصحاب شرفت بدن سؤال مركلك سؤال مقال كله ولكن صعب كنا زمان وسوي channel كاسيد وكله فيسبوك بيج كهوسو برو مركله وحن كلها وكما سنتها وقت جاجا إذا وشذ مقال كان داونه صار لأن كان نجد داونه يسد به مقال كان وحن رجينا إن الله جريسو أدي ذو ما سنتها لأن كله هدية تاخذ حساب مقال سمينته وحجرت كورسو أونلاين أو أم بحيو ومركز أتكبرن كرتو سيد أدو سميسان كرتو مقال خروج بدن هدية استعماله سو تلفون كاجا ama kamerad mid ay ahaataba sida isiga hagaajin lahayd marka haddii aad u baahan tahay koorsaas inaad qaadatid muuqaalkan dhamaadkiisa iska sug insha Allah box ku soo baxayna toos waxa uu ku geenayaa website-ka halkaas ayaad markaa ka iibsan kartaa haddii aad rabto inaad bankaar ku iibsato haddii aadan bankaar awoodin ama aadan haysanin WhatsApp numberka meesha kaaga soo baxay la xiriir isaga ayaa markaasi si toos ah ku diiwaan gelin doono waa maasantahay wiilkan yar magaciisa waxa la yiraahdaa Kayd waxa uu dhashay dhamaadka sanadkii 2004 waxa markaasi hooyadiis ay leedahay markii uu wiilkayga dhashay aad iyo aad ayaan ugu farxay sababtoo ah waxaan ahaa qof dumar ah oo loo sheegay inaysan macquul ahayn ama ay aad u adag tahay inay ilmo dhasho waa arin runtii aad iyo aad u xanuun badan qofkii arintaas oo kale ay haysatana waan u duceynaynaa waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu ubad khayr qabasiyo insha Allah okay marka wiilka markii uu soo dhashay yaraantiisa dadka ka warbixinaya waxa kamid ah ayaydiisa markaas waxay leedahay xanuga yar intuu uu bilaha hore jiray intuuna sanad gaarin sida ilmaha kale oo aan arki jiray oo kale ma ahayn oo boodboodayo maaragtay ciyaaray ama si ah waxa uu ahaa wiil aad u degan oo inta badan xitaa ku soo fiirinayo oo waxay leedahay aad ka dhaxdhansan kartidba inuusan afka ka weydiinayno laakiin uu indhaha ka weydiinayo su'aal uu ku leeyahay yaa tahay aniga maxaa inta u jooga oo kale wax la mid ah sidoo kale hooyadiisana waxay leedahay Kayd wax waliba dhaqsi ayuu u bilaabay sida haday noqoto fadhiga garguurashada hadalka socodka wax waliba hal sano iyo bar markuu jiray waxay leedahay waxa uu ku hadlayay erayo waaweyn waxa uu awooday inta qof weyn uu la sheekaysto marka tii waqti ayaa isku soo daray waxay leedahay hooyadiisa 3 sano jir marka uu ahaa Kayd ayay ahayd marka uu bilaabay arinta la yaabka leh taasoo ah inuu ka sheekeeyo inuu xusuusto isagoo oo dhimanayo aad iyo aad ugu faraxsanahay in boardka iga dambeeyo uu yahay shirkad in badan aan maaragtay isticmaalayay adeegeeda oo ah Transfer Galaxy oo haddii ay noqoto telefoon ahaan ama haddii ay noqoto computer ahaanba aan ka dirsado lacagta dhan walbana aan u diro waliba si aad iyo aad u fudud haddaan diraya daqiiqadii kadib waxaan maqlaa lacagtaas maadaa soo diray marka hooyadiis waxay sii leedahay 3 jirkiisa iyo wixii ka dambeeyay ayaan xusuustaa isagoo habeenkii hurdo inuu habeen barkii intuu soo kaco oohin la soo kaco isagoo markaasi ka sheekeynayo xafiiskiisa wax walba siday ahaayeen iyo sidoo kale xitaa sar isagoo la dumayso inuu xusuusto taasoona ah markaa sida uu wiilka sheegayo sida uu ku dhintay marka meeshaas markay marayso waxay leedahay waa wax waaliya oo la qaadan karin in anugaaga yar oo 3 jirka ah uu ka sheekeeyo dhimashadii New York istar soo dumaysay waxyaabahaasi marka meeshaas markaan marayno hadda fahmi kartaan u maleynayaa sheekada meesha ay soo socoto waan ku sii soconaynaa marka hooyadii waxay bilowday inay ku fikirto malagayaba in waxa wiilkan uu ka sheekeynay ay run yihiin malagayaba inuu meesha ku jiray malagayaba inuu ku dhintay meeshaasina waxa waa meel kale ma ahane sidaan ognahay 2001 sanadka markuu ahaa bishii 9aad 11 ayaa waxa dhacay qaraxii weynaa ee wadanka Mareykanka oo markaasi lagu qarxiyay oo lagu baaba'shay xaruntii ganacsiga ee Mareykanka magaalada New York oo markaasi la lahay Twin Towerska marka wiilkan sheekadiisa waxay u soo ururaysaa inuu yahay qof meeshaasi ku jiray oo ku dhintay oo laakiin mar kale dib u dhashay
waan sii socnaa weli marka hooyadii waxay leedahay waxaan ku fikiray talo waxa si sax miya inuu meesha ku jiray oo ku dhintay malaga yaab haddana in yar kadib waxay leedahay aniga iscelsho aan leeyahay maya waxaas macquul maahan ma noqon karto waxa laga yaabaa in oo maaragtay sawirasho ama imagination qaldan inuu haysto yacni qarow iyo waxyaabahaas inay ku dhex jiraan laakiin xogaa kadib wiilkii waxa uu bilaabay inuu wax sawiro sida hadda aad arkaysan sawirkani waxa uu ka mid yahay waxyaabaha isaga uu sawiray oo markaa ah labadii sarood iyo weliba diyaaradda ku soo socota ayaydiisa dhanka kale waxay leedahay markii uu xoogaa soo sii weynaaday wiilkan oo 4 ilaa 5 meelahaas uu soo gaaray waxa uu shock ama sas uu ka qaaday diyaaradaha hadday diyaarad soo dulmarto waa uu cabsanaya wuu qaylinaya haddana markaan u fiirsaday leedahay kama cabsanaya diyaaradda inay dul marayso ama inay diyaaradda hawada ku jirto kama cabsanaya wuxuu ka baqayaa diyaaradda meesha ay u socdo xagee u socotaa uu isleeyahay marka xilligan documentary-ga la sameynayay sidaan hore u sheegayba Cade waxa uu ahaa 7 jir kale waxay ku dhacaysaa adiga 2011 ama 12 meelahaasi waxa aabihiisna oo dhanka kale leeyahay Cade markaan isla socno oo gaariga uu sahran yahay magaalada downtown-ka ama magaalada gudaha meesha saraha dhaadheer ay ku yaalaan inuu socdo ma jeclo meeshaas marka la tago inuu gaariga ka dego ma jeclo weliba waa uu dhibsadaa sababta uu dhibsanayna wax kale maahan waxa uu ka baqaa saraha gaar ahaan kuwa dhaadheer isaga laftirkiisa oo hadlayo wuxuu leeyahay satan dheer waxay u egtahay mid ka mid ah Twin Towerski oo yacni kuwa weliba iftiimaya ama miraayadaha dhadhalaalaya wuxuu leeyahay de xusuuso badan ayay dib igu soo celinaysaayoo mana jecli yab haddana hooyadiis waxay leedahay intii hore dhan waxaan u sameynaynay qiil ama marmarsiyo waxaan dhahaynay waa nafsadiisa waa siduu wax u arko waa siduu wax u sawirto laakiin markii dambe waxay leedahay waxay timaaday meel aanan maaragtay aanan dafiri karin oo ah inuu toos inoogu sheego oo uu yiraahdo aniga waxaan ku jiray sar dheer sartaasi dheerna waxa ku soo socday wax u eg diyaarad kadibna sartii ayay dhex fariisatay oo markaas ayay noqotay in sartii ay dhacdo sartii intay sii dhacaysay waan noolaa laakiin markii aan dhacay waxay noqotay inaan waxba dareemin sababtoo ah waan dhintay okay kadib sheekadii way soo tartay oo hooyadii dhankeeda way ka murugoonaysaa waxay leedahay hadda waa 7 jir laakiin weli yacni wixii way ku jiraan markii dambe waxay leedahay Cade waxa uu bilaabayba inuu yiraahdo aniga magacaygan Cade ma jecli oo aniga magacayga magac kale ayuu ahaa hay sheekadii hadday ka sii dartay marka waxay tiri marka magacaaga muxuu ahaa marka qolada muuqaalka sameynaysa waxay yiraahdeen marka magaca waan qarinay magacii ayay waxay samaysay sheekadii inay ku lifaaqdo oo internetka ay ku qorto kadibna waxay tiri ayadoo jawaab raadinayso waxa ay jawaab ka heshay hooyo kale oo u sheegtay inuu jiray qof la yiraahdo magaca wiilkeeda uu sheegay laakiin ay doorteen inay qariyaan muuqaalka ahaan dartiisa la dhihi jiray welibana meesha ka shaqayn jiray xafiis ku lahaa maalintaasi qaraxa uu dhacay ayuuna meesha ku geeriyooday markaas kadib waxay sii fiirisay magacii qofkii internetka ay ka baartay sawiradii ayay aragtay wixii ayay fiirisay waxayna leedahay aad ayaan u murugooday laakiin marnaba kuma fikirin inaan la xiriiro familka qofkii horay meesha ugu geeriyooday oo magacaasna la dhihi jiray wiilkaygana markaasi uu xiriir nololeed ahaan uu ka dhaxeeyo sababta waxay leedahay maxaan ku iraahdaa waxaan isweydiiyey maxaan ku iraahdaa maxaad ku dhahaysaa ma waxaad dhahaysaa wiilkaaga meeshaas xilligaas kuma dhimanine waa qof kaloo duwan hadda waana canugayga ma sidaasaa leedahay marka aniga inta qof uu soo wacdo sidaas oo kale ugu dhihi lahaa taleefanka ayaan ku damin lahay tiri marka hooyadii ugu dambeyn waxay leedahay waxaan ogaaday runta oo ah inuu yacni qof hore u jiray uu yahay inuu nolol hore uu lahaadan uu nool yahay sideen uga tiraa xasuustaasi sideen yacni noloshiisa hadda aan u bedelaa dhanka kale aabahana wuxuu leeyahay marka Cade inuu xaaladaasi la nool yahay darteeda waxay siisaa waqti adag markay noqoto la ciyaarida caruurta dhexgalka caruurta xitaa sidoo kale iskuulka caruurta qaar waxay u arkaan beenaale iyo waxaas inuu isaga iska samaysanayo sidoo kale macallimiinta iskuulka intooda badan ma jeclo sababtoo ah ilmaha ayuu waxa uu uga sheekeeyaa ama ay u arkaan qof yacni maaragtay la soo diray oo kale marka haddii aan u laabano bilowgii maadaama aan idhi sheekadan waxaad ka soo qaadaa film fiction ah dhacdooyinkan oo kale ama kuwo kaloo ka daran filmaan badan ayaa laga sameeyey oo ah qofkan hore u noolaa haddana nolol kale yacni waxa la yiraahdo markaasi dib u dhalasho oo kale qof ayaa dhintay haddana mar kale ayuu dib u dhashay isagoo jir kale qolof kale ama waxyaabahaasi marka horta ilaah awoodiisa wax walba waa ay ku dhacdaa laakiin dad badan
ayaa aaminsan dhacdadan. islaam ahaan horta waxaan aaminsanahay nolosha adduun oo hadda ah iyo midda dambe ee aakhiro, laakiin waxaa jiro dad fara badan ama diimo kale oo aaminsan arrimahan oo kale. hadda sida diinta oo Buddhismka ayaa aad u aaminsan qofka inuu maaragtay dee dhowr mar uu soo dhasho ama ugu yaraan 2 mar uu soo dhasho, taasoo weliba xitaa ay u tusaaleystaan. waxay yidhaahdaan qofka marka uu hadda nool yahay oo uu dhinto isagoo dembi sameeyey ama yacni wax qaldan uu sameeyey, haddii uu dhinto waxay yidhaahdaan marka kale uu soo dhalanayo ayaa ama waxaa laga soo dhigaa faqiir ama xubnaha qaaraa la tiraa ama yacni calaamad ama wax unbaa loo sameeya oo noloshiisa dambe markaasi lagu ciqaabo. ayagoo aaminsan qof waliba hadda xaalad faqiirtinimo ku nool, xaalad oo maaragtay dee qofka lixaadkiisoona dhammaystirneen ku nool, inay tahay ciqaab ka timid dembi hore ay geysteen. marka ugu dambeyn markii aan baaray wiilka iyo meesha uu ku dambeeyey, maadaama laga sameeyey maaragtay documentary-gan 10 sano meelahaasi ka hor, waan waayey. marka wax walba ay tahay ilaa og. insha Allah haddii ay noqoto markaas inaan wax kale ka helo update ah waan idinla soo socodsiin doonaa. inta ka horeyso aad iyo aad u mahadsantihiin inta muuqaalkan aad daawateen. insha Allah inta muuqaalkan aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabad aad.